السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من كسو دوادا برجتيني HTML CSS ka ahaa waxaan markaa bilaabaynaa inaan sameyno waxaan soo furi doonaa file folder ayaan soo furan doonaa waxaan ku dhufan doonaa file kadib waxaan dhihi doonaa folder open folder kadib waxaan sameysan doonaa folder halkan waxaan ku sameysan doonaa desktopka marka waxaan dhihi doonaa right click new folder then waxaan sameysan doonaa folder okay marka waxaan ku qori doonaa keliya web design ama HTML CSS website ama la ku qori karaa okay so marka saas uu qorno kadib waxaan sameyn doonaa inaan soo furno so marka aad sameysid folderka aad ku sameysan yahay dabcan click un baad ku siinaysaa click aad ku siinaysaa kadibna select folder okay then waxaan sameynaynaa inaan website aad sameyno so website saa u sameyno waxaan u baahanahay HTML and CSS file waxaan ku dhufan doonaa plus file kadib waxaan dhihi doonaa index.html okay waxaa laga sameyn doonaa marka file HTML ah halka waxaan sameysan doonaa sidoo kale file CSS waxaan dhihi doonaa style.css okay waxaa laga sameyn doonaa file kale oo markaa oo css ah okay waxaan imaan doonaa fileka html waxaa dhihi doonaa shift 1 oo marka waxaa laga sameyn doonaa structureka html-ka boilerplate oo diyaarsan kadib titleka bedelaya titleka marka waxaa ku bedeli doonaa dhihi doonaa hirkaab academy so marka titleka waxaad doonaysaa ku qoranaysaa then waxaa ku xiri doonaa css-ka dabcan haddii aad bilow tahay html css aan soo qaadan please storage free ku jiro website-kaas ayaa already kuu sheegay marka storage soo yar qaado project-yan waa sameyn karaysaa marka okay marka waxaan dhahna linki colon css that means marka css-kii oo style.css file line siinaya haddii kale si caadi sii sameyn kartaa oo hadhow marka cadaad ku qoran doona hrefka oo ever lagu siin doonaa markaas okay marka haddii hrefka style.css arid in lagu qoro waxaad dhihi doontaa linki colon css okay so intaas sameynaynaa dan website-ka qaybta koowaad oo waxaan ku bilaabaynaa oo header-ka so website-ka hadda waxaan ka bilaabaynaa marka qaybta horeysa oo markaasi qaybtan header-ka so marka qaybtan navbar top navbar-ka iyo soo kale hero session-kaana ku kooban yahay marka intaas sameynaynaa isla socono okay marka koowaad waxaan image-kan ama sawirkan waa sawir marka gadaal yaalo kuwan kale marka dul yaalan okay so dul yaalan kuwan kale so sawirkan gadaal yaala insha Allah saa u sameynayna isla socon insha Allah okay marka waxaad isticmaali kartaa diffs isticmaali kartaa balse waxaad isticmaali kartaa sida caadiga semantic HTML tags ayaa isticmaali kartaa taasoo marka muhiim ah website-kaadana marka aad loo aqoonsan karo marka semantic HTML isticmaalina si aadan u isticmaali doona insha Allah marka qaybta hore header-ka diff waa dhihi karaa laakiin qaybta hore header waa inaan dhahaa semantic HTML aan isticmaalay okay kadib sawirka ayaa usoo hormarsiinaynaa why sawirka usoo hormarsiinaynaa because sawirka image gadaala la geen doonaa ininkoo marka position isticmaali doono insha Allah isla soconaynaa insha Allah hadda marka isla socono marka koowaad so waxaa dhehnaa img sawirka iisoo geli sawirka marka header-ka so sawirka hadda inta migu jiro adiga waxaa sameynaysaa linki hoose aad kadib ku dhufo sawiraanta diso so waxaa soo geshan doonaa marka sawirkaas iyo sidoo kale loojada ayaa soo geshan doonaa okay so hero.png kay ku qoran tahay weeyaan marka waxaa dhahaysaa hero.png sawirkaas iisoo geli kadib waxaa dhihi doonaa meeshaan alta hero image aa dhihi doonaa lacala haddii uu soo qabo waayo in markaa hero image la okay very cool then marka waxaan sameynaynaa qaybta navbar-ka so image-kan hadhow ka hormari doonaa navbar-ka balse waxa weeyaan waxaa ka dhigi doonaa inuu gadaal aado oo background oo noqdo okay marka waxaan sameynaynaa hadda qaybta marka navbar-ka sameyn doonaa so navbar-ka iyo kan marka isla socdaan so navbar-kan qaybtan iyo qaybtan kale oo isla socdaan marka hal div gelin doonaa waxaan dhihi doonaa hero content kadib navbar-ka halkan ku sameysanaynaa marka waxaan dhihnaa top navbar comment ayaa ka dhiganayaa so marka intaa ku sameysanaya navbar-keeda okay so jalaasna waan ka dhiganayaa waxaan dhihi doonaa top navbar so navbar-ka halkaan aad gelin doonaa marka space aa siin doonaa so u fahantaan okay so navbar-ka intaa gelinaysaa marka navbar-ka muxuu ka kooban yahay marka navbar-ka wuxuu ka kooban yahay 3 shay laba shay ka kooban yahay hadeertaan labadooda marka waxaa dhex gelinaysaa isna hal div ayaa dhex gelinaysaa marka waxaa dhahaysaa dot navbar content marka image aa soo geshanaysaa image-kana div aa sii gelinaysaa waxaa leedahay div img loojadaa soo geshanaysaa marka waxaa dhahaynaa dot forward loojadaa soo geshanaysaa marka altana waxaa ku qoranaysaa looja oo kale lacala haddii uu soo qabo waayo si marka loo aqoonsado in loojada ay meesha ka maqan tahay okay then waxaan sameynaynaa linkiyada ama nafiska ayaan sameynaynaa waxaan dhahaynaa naftage ayaa isticmaalaya then linkiyada soo gelin doonaa ul isticmaalaya sida caadiga li times
waxaa dhihi doonaa inta xabaa u baahanahay times 3 4 oo kale aan leeyahay 4 li ayaa la ii samayn doonaa sidoo kale xitaa dhammaan waxyaalahan oo kale hal mar ayaa samayn kartaa intaan taajis hal mar ayaa samayn kartaa oo sidee u samayn karaysaa waxaa dhihi kartaa waxaa rabaa diffkaas oo markaa lagu magacaabo top nav ila soco waxaa la dhowraa rabaa inaa projectkan ku sharxo top nav oo ku dhex jiro diff kaloo loo yaqaano diff adaadan dhihin uu fahmaya laakiin diff sababta u dhaha maadaama hadda idinku cusub yahay maybe ayaa markaa u sameynaya okay haddaa jalaas dot aa dhahid uu fahmaya marka hadda waxaan samayn doonaa diff oo loo yaqaano top nav oo ku dhex jiro diff kaloo loo yaqaano nav bar content mujida sidaasaa loo sameynaa waa sii wadi kartaa marka waxaa dhihi kartaa kaasna waxaa ku dhex jiraan doono laba diff waxaa ku dhex jiraan doono diffkaas oo kusii dhex jiraan doono img saber mujida waxaa la sameeyey diff waxaa la sameeyey diff kale diffkaasna waxaa lasii sameeyey saber aa lasii dhex geliyay soo mujid intii oo kale ayaa hal mar la samayn karaa soo mujid intaan oo maanta oo dhan sameynaysa hal mar ayaa samayn kartaa haddaa sii wadna waxaa ku xido nav kadib ul oo ku dhex jira marka waxaa dhigi kartaa emailka markay noqoto marka waad ka bixinaysaa marka maadaama yani uu emailka hadda intaa marayso sooma marka waa kasoo dhex bixaysaa nav barkan oo kale inaa samaysid artaa marka waa ka bixinaysaa marka waa ka bixinaysaa meenaa waxaa ka wadaa hadda haddaa dhaho tusaale kale waxaa sii samaysaa haddaa dhaho nav sii samee kadib waxaa sii samaysaa ul waxaa sii samaysaa li waa lasii dhexgelinaa macnaha mujido intaa lasii dhexgelinaa qaybta emailka uu yaalay emailka dhexdiisa lasii dhexgelinaa marka waa ka bixinaysaa soo qaabka uu bixinaysa waa iska fududahay keliya waxaa samaysaa calaamada wax isticmaalaysa hadda calaamadan forward isticmaalayna soo yani creatorsanka aad isticmaalayna marka waxaa isticmaalaysa calaamadan isticmaali doontaa okay waa shifty sigis ama lambar 6 kadib control space aad dhaysaa haddii uu kuusoo qobi waayo dabcan so waxaa dhaysaa kadib waxaa ii samaysaa nav mujid haddaa inter dhaho diffkii imageki waa la sameeyey nav barkan waa la iisoo dhexbiyey so mujid so qaabkaasaa looga dhexbiyaa marka waxaa dhaysaa navka waxa ku dhex jiro ulkan waxaa kusii dhex jiro li oo noqon doono 4 xab mujida intii oo dhan intaan oo dhan hal mar aa sameeyey marka so mujid intaan oo dhan hal mar aa sameeyey marka insha allah qaabkaas isticmaali doonaa haddana waxaa rajeynaya inaad si fiican u sharxay oo yara fahanteen okay so waa kana intaan oo dhan hal mar aa la sameeyey ujeedada diffka xero intaas waaye qaybtan jala diffka content marka nav content weeyaan intaan jala waa diffka jala soo dhow adaa kala bixinaysaa oo kala bixinaysaa si markaa nestin oo hadhow kugu noqdo okay meeshaan marka waxaan gelinaynaa hadda loojadeeni maadaama as jadilinay dad foora badanaa fiican si hadhow hadaa meel kale kasoo furta uu marka kugu soo sawiraanta okay marka hadhayna logo then li-dana gelinayna marka li-da marka li markii la sameeyo linkiyaa laga dhidaa anchor tag then marka waxaa gelinaynaa meelaha kala duwan yani sessions kala duwan session walba marka waxaa siin doonaa hashtag siin doonaa hadhow marka pageka halka page hal mar aad tuso halka page isku xirnaana marka tusaale kale let me click here halka marka click ku siiyo qaybta course-ka la keenaya haddaa qaybta course-ka aad joodana qaybta home-ka kale qaybta home-ka baa la keenaya testimonial qaybta testimonial-ka la keeni doona marka qaabkaasa markaa sessionska ugu xiraysaa marka linki maadaama page kale la aadaynin hashtag la isticmaalaa home kadib hadhow id aa siin doonaa marka id gaas ay ku dooranaysaa marka waxaan gelinaynaa home qoraal home aan gelinaynaa so intaan kale waa la mid so hal mar intaa ii dilid so xitaa waxaa dhihi leed a ama anchor tag iisii dhexgeli waa dhihi karnay balse waa yara ilaaway so marka home courses testimonials iyo content intaasaa marka kusoo koobeynaa so inta waxaan dhehaysaa courses hadhow marka id magaca aan siin doono ay tusi doona insha allah qaybtan kale waxaan dhehaynaa testimonials qaybtana content okay contact okay intaas waa marka qaybta navka qaybta kore intaas weeyaan so insha allah intaas ku sameynaa qaybta kale marka herowa ama qaybtan qoraalka uu ku qoran yahay loo yaqaanaa qaybtan hadda qoraalka uu ku qoran yahay qaybtaas hadda sameynaynaa right now so qaybtaas asina uu fudud yahay hero text qoraal noogu qoran marka waxaa dhehnaa hero text then qoraalkii h1 iyo paragraph iyo bottom marka hal mar oo sameyn kartaa waxaa dhihi kartaa h1 plus paragraph plus bottom noo samaysan saddexdooda hal mar aa sameynaya billahi tawfiiq mujida so saddexdooda hal mar aa sameeyey so qoraalada soo jishanaa so qoraalada marka please waqtigaas ka lumin linki hoos oo ku jira koodka qoraalada halkaas ka koobiyeysa okay ama xitaa waxaa soo gelin doonaa linki website-ka aad ka booqan jirtid preview meelay ku qoran tahay live preview meelay ku qoran tahay meeshaas hadaad ku dhiftid website-ka naftirkiisa booqan kartaa oo saano kale hadda anigu waa koobiyeysin oo qoraalta ujeedaan saas kale oo koobiyeysan jirtaa okay bottomka waxaan ku qoraynaa enroll now okay intaasoo marka hero textiya hero sessionka qaybtaasi ku qoran so bottomka waxaa dhehaynaa
waxaan siinaynaa jalas btn okay si aan u install gareyno okay intaas bis aan u baahannahay qaybta marka herowga waxaan bilaabaynaa marka inaan install gareyno marka installka hadduu ku xiran yahay click haddaa siiyo fileka liijenaya tusaale kale fileka uu kaa xiran yahay meeshan haddaad click ku siisid adoo control haya fileka liijenaya okay markii hore intaan bilaabin inaan install gareyno qaabku noo noqdo horta waa si fahmaysan dabcan html kaliya waay content aan noo soo muuqanayo so content bis aan noo soo muuqan doono hadda waxaa waa sawirka hadda soo muuqdo I think sawirka weeyaan intaas so qoraalada kale oo kuwana so waxaa la rabaa qoraalada inta yaalo sawirka uu ka horeeya soo in la dul saaro la rabo fahmaysa waa la dul saari doonaa dowr marka hadda sawirka waxa sameynaa marka aan comment saaro si aan u install gareyno qaybaha kale kadibna sawirka aan dul saarno okay qaabka uu dul saari doono insha Allah arki doonaa aad u fududahay marka page intaan install aan ku bilaabin reset lagu sameeyaa page-ka tusaale kale hadda space page uu qaadanayo waxa la jiro waan soo qaadanay course-ka marka reset-kaas sameeyo doona marka xadii doona reset page waxyaalo dhowr nood ku dari doona waxaan rabaa inaan waxyaalo dhowr ku baritaan project insha Allah okay let's see marka waxaan isticmaali doonaa asterisk si marka dhammaan uu soo doorto page dhan waxaan dhihi doonaa marka margin 0 padding 0 both sizing kana soo sharxay both sizing border box okay then marka waxaa kaloo reset sameynaa mar walba aan jirta aad samaysid link waa soo wuxuu qaadanayaa sidaas yani underscorekaas oo qaadan doonaa sidoo kale kalkaas oo qaadan doonaa mar walba every time oo underka anchor tag aad samaysid saas weeyaan marka anchor tag marka asina resetka lagu dhex daraa marka waxaan sameynaynaa anchor tag adhaysaa kadibna waxaan sameynaysaa decorationka ka daraysaa oo markaasi underscore marka adhaysaa none sidoo kale colorkana waa ka bedelaysaa marka waxaa leedahay color marka color badanaa waxaa sii kartaa madow caadi ah sidoo kale 3 na waa la siiyaa badanaa sii karaysaa okay good saasuu noqonaya marka anchor tag sidoo kale haddii ul-ka wuxuu qaadanayaa hal mar aad tuso margin-kan kana ka bixinaya ul-ka wuxuu qaadanaya list type-kaas uu qaadanaya dhibicdaas uu qaadanaya marka ul-kaasina waxaa lagu darayaa qaybtan reset-ka lagu daraa marka waxaa dhahaysaa ul list style none ayaa leedahay kaliya display waxaa la sadhin because maybe marka qaar inaad display flat aadan u baahan balse hadda inta reset-ka waa lagu daraa okay then waxaa kaloo reset u baahannahay marka titleska kala duwan maadaama section titles isku mid yihiin cabirada saarteen qaybaha isku mid cabirada so hal mar aan sameynayna hadhow jalaaskas waa isticmaali doonaa oo keliya qaybtan oo kale ujeedaa iyo qaybtan isku mid so laba mar isticmaali doonaa so titleskaas waa si diyaarsanaynaa marka waxaa dhehnaa easily titles isoo qabo waxaa isticmaali doonaa intaanu title waxaa isticmaali doonaa section title oo small ah oo font size intaas yahay font familiar insha Allah ku soo dari doonaa sidoo kale waxaan isticmaali doonaa title oo markaasi section title oo cabirkiisa intaas yahay sidoo kale subtitle oo markaa cabirkiisa intaas yahay marka intaan isticmaalaynaa oo markaa si qaybta resetka ku soo dari doonaa okay midda kale qaybta resetka ku soo dari doonaa waxa kamid ah ujeedaan dhexda ayuu markaa website-kan ku aadan yahay so qaybaha kale space ka yaalo inta badan website-yada ku anateen so space-yaas marka container style samaysanayna marka waxaan dhinaca container kadib cabir siisanayna marka container styles waxaa leedahay cabirka ugu badan oo gaari much width ay isticmaalaysaa then waxaa dhahaysaa 1200 oo pixel 1200 pixels then marka waxaan kusoo aadinaynaa sida caadiga dhexda waxaan dhahnaa margin auto so marka dhex bartamaha lagu soo aadin doonaa kadib padding yaraa siinaynaa waxaan dhahnaa padding kormarkarios marka waxaan dhahnaa 0 kadib labada dhinac 32 pixel okay intaasaa containerkeena u rabnaa saalka qaybta hadda navbarka qaybta hadda top navbarka waxaan gelinaynaa container oo kale waxaan dhahnaa inta waxay gelisaa container okay kadib waxaa soo qaadanaya intaan kadib waa dhex gelinayaa saan usoo daraa jiray kartaa waad ku aadi kartaa control h inta imaanaysaa control v adhaysaa okay sidoo kale waxaa u geli kartaa qaab kale oo yaro fudud asina aad samayn jiraysid inaa aslanba aad dooratid control shift p aad dhahdid aad gelisid div caadi aa u gelisid raab aad ku qoraysaa meeshan sorry kadib waxaa dhahaysaa div ayaa ku qoraysaa so divki caadi aa loo dhex gelinaya okay so hadhow marka jalaastaas siisanaysaa marka stebyada midkii kuu fudud qaado okay marka waxaa dhahnaa container oo jalaas noo sii so hadhow dhexda lagu soo aadinaya so ujeed navbarkii so qaybahan kalena waa siin doonaa never don't worry qaybaha kalena waa siin doonaa tusaale hadda qaybta hero kasti waa kana easy la samayn doonaa inaad control shift b aa dhaho meeshaan aan ku qoro raab kadib aa geliyo div aa gelinaya sorry jalaas miyaa ku qoraya
diff bisa rabaa soma okay intaas kadib jalaska wuxuu noqonayaa mar walba containerkaas noqonaya then asina waxaa la sameynaa qaybta dhexal keeni doona soo jeed just like that okay intaas waa marka hadda istaal jarayna marka qaybtan neefka ku bilaawno reset waa soma intaas neef so marka loojada jalas soo siisana muhiim waa loojada inaa istaal jarayo diff kale soo siiso marka waxaa dhaysaa logo adhow marka waa dooranaysa keliya waxaa leedahay yani logo kadib imagekaad sii dooranaysa okay okay qaybtan judna waxaa waaye waxaa kusoo qornay content in nav content kadib waxaa dhihi doonaa nav content labadaba marka way isdul yaalaan saa ujeeda loojada iyo way isdul yaalaan display flats yaa siinayna df display flats justify content and star between justify content waxaa isticmaalaynaa space between so marka waxaa la sameynaa waa intii intaa la jaljeenaa okay display flats waa la is adhidaya kadib halkaas la jaljeenaa dabcan waa soo yara qaadanay intaa kadib waxaa dhihi doonaa align items center dhexdaad ku aadinaynaa contentyadana align items center sorry waxaa dhihi kartaa aic aa dhihi kartaa waa kusoo qabanaa kadib inter aan leedahay then marka intaasaa u baahanaa qaybtan saa ujeedid then waxaa sameynaya inaa ulkan aa istaal jareeyo ulka waxaa siiyey haddaa isla socono nef tag nef la siiyey marka waa soo dooran karaa marka tag ahaan usoo doorana waxaa leeyahay nef kadib ul display flats yaa siisanaya then waxaa la sameyn doonaa in lis adhido saa ujeeda waa lis adhidaya kadib waxaa keliya u baahanaya marka inaa space aa siiyo waxaan siin doonaa marka gap 20 pictures something okay cabirka cabirada ani aa siinayo muhiim maahan inaa sida u qaadato marka ani 20 adhow inaad 20 hore aad ku qorto muhiim maaha marka cabir walba any cabir aa is leedahay okay waaye shaashadaada adig kuu furan aa qaadan kartaa ma fahmaysaa adi shaashada markaa kuu furta aa qaadan kartaa okay so marka hadda loojada saa ujeedaa meeshaas sare ku dhegan tahay qoraalada hadda ku dhegan balse loojada ku dhegan tahay so qaybta navbar content waxaa siinaynaa space marka baadin aa siisanayna baadi marka kori hoos aa rabtaa marka waxaa leedahay keliya 8 pictures space 0 pictures so qaybtan waa top bottom qaybtan kale waa labada dhinac so marka spacekaas la siin doonaa marka waa ku yara dari kartaa haddii aad doonaysid okay so I just need that qaybtan marka hero aa istaal gareeyo waxaa dhihi doonaa hero aad u fududa istaalka waa ujeedaan you don't need inaa waxyaalo badan aa ka walwashid qoraalka aad u fududa okay waxaan ku bilaabaynaa sawirka hadda marka inoo muuqdo ba asal sooma marka saa isku dul saaraynaa horta intaan is dul saaran waxaan ka bilaaba qoraaladana ka bilaabaynaa labada intaan qoraal aad istaal gareyno qoraalkooda waxaa kusoo qornay horta jalaska waxaa kusoo qornay hero text kadib hejon oo ah qoraal koowaad hejon marka cabir aad siisanaysaa waxaan siinaynaa font size 88 pictures ama 80 pictures ama 90 pictures wixii markaa shaashadaada okay ku noqdo responsive ka dhow ka dhigi doonaa ayaa hadda siisanaysaa right now qaybtan jala waxaan dhihinaa letter space wax kale maahan in markaa tusaale kale haddaa dhaho 2 pictures aan sameynaya in ereyada letters in la kala fogeeyo marka hadda waxaa rabaa inaan isku soo dhaweeyo marka waxaan rabaa minus 2 inaan dhaho okay normalkan waa intus jira hal mar intaan wax siininba islan commentaas araya so hadda caadi waa sama haddii marka aad ka dhigno 2 space aa la siinaa okay ereyada space waa la kala fogeynaa ereyada okay marka hadda waxaa rabaa inaan isku soo yaro dhaweeyo marka minus 2 aa isticmaala marka minus 2 he ayaa isticmaala marka headerka waa aragteen qoraalada soo dhaweeya qoraalada qaybtaas intaas minus 2 aa isticmaala okay maxaa kaloo noo saaray intaas bisa sameynaya haddii marka laba sawir uu noqdo waxaa sameynaya line height wuu noqon doonaa dabcan waxaa dhihi doonaa line height waa sar markuu noqdo weya marka waxaa isticmaali doonaa 0.9 waxay rubaa rabaa then margin bottom waxaa ka hooseeya intaa ujeedaan paragraphka space oo sarka siinaya 10 pictures good intaas sameynay paragraphka gudubna marka intaan kala soo qodkubiisanaa kadib waxaa u bedelaya qaybtan b ama paragraph okay so marka nesting waa waxa qaabkii u shaqeynayaan qaybta hero text marka saa u doorto waxaa ku hoos jiro dhan hadhow markaa bedbedelay waa la iisoo dooran karaa dabcan hero text b hadda ku bedelo paragraphka hadda la ii dooranaya so hadda daa fiiriyo paragraphkan isu cabira la yidhi ujeedo marka because anaga saas usoo doorto marka saa usoo doorto wixii uu shaqeynaa okay wixii aa usoo doorto ayuu wixii uu shaqeynayaa okay so marka paragraphka cabirkiisa marka waa ka bedelaysaa ama sidoo kale cabirka waa iska dhaafaysaa already cabirka paragraphka uu qaato unbaa iska qaataa leedahay okay line heightka waxaa dhehnaa 1.9 margin bottom
you don't need right now marsiisa sii daynaysaa so intaan bisa u baahannahay so letter space kan you don't need hadda uma baahni so just I think intaa la u baahan tahay so intaa bisa u baahan tahay so already marka waa okay so haddaa fontii colorka haddaa bedelaysid okay 3 das ay isticmaalaysid okay balse siisa sii daynaysaa so buttonka imaano buttonka inta badan waxaan kusoo istaaljireynayna qaab ah inaan tusaale kale borderka iyo outline waxyaalahaas inaan ka saarno so qaabka samayn jirta waxaa ka mid ah marka inaad dhahdo tusaale resetka ku dari kartaa lisii qaybta resetka ku dari kartaa qaybta waxaan dhihi jirnaa button walba oo la sameeyo waxaan dhihi jirnaa button hadiiba la sameeyo waxaad samaynaysaa all answered okay all ayaa dhehaysaa answered marka waxaa weeyaan in marka la sameeyo reset la sameeyo okay waxaa reset lagu sameynaa all properties aa reset lagu sameynaa propertiyadoo laa dhan mujida wuxuu lahaa border background yar uu lahaa markii mouse loo aadiyo hover lahaa waxaasna waa la saaraa qoraal caadi camal la yidhahdaa waa kana buttonkii qoraal caadi camal uu noqonaa marka adaa style jareysana marka meesha hadhow aad ka dhihi lahayd button walba border none iyo outline none aad ka dhihi lahayd just waxaa dhehaysaa marka button all answered okay it's very cool marka hadda buttonka aan soo doorno pt anaa uu soo bixiyey waxaan ka hormari karaa intaan yara ka hormari karaa si loo aqoonsado in buttonka qaybtan uu yahay oo hero touchstii ku dhex jira qaybtaas buttonkaas inuu yahay taada maxaa sameynayna marka background yaa u miisan waxaa dhehnaa background kalaraa siisanaa marka kalarada marka si aan maanta oo dhan aan u bedbedelin waxaa halkan ku samaysanayaa variables oo variable aan samaysanaya soo dhow kalarada aan ku keedinayo waxaa dhihi doonaa root so colorka waxaa raba tusaale kale kan waxaa dhihi doonaa primary so colorka primary aa dhihi doonaa color kala isticmaali doona dabcan kalarada hajiriminta unbaa isticmaalaya hadda marka kalarka intuu ku aali doonaa mar waliba haddaa kalarka meel badan aad ku isticmaashid hal mar haddaa rabtid inaad bedeshid meeshaan unbaa ka bedeli doontaa okay sidee usoo dooranaya iska fududahay meeshaan imaanaysaa background color waxaa rabaa kalarka soo maa so waxaa dhihi doonaa marka var kadib dash primary kadib marka background yaa lagu siinaa so sidaa iska cad baadin aa u baahan tahay kadib waxaa dhihi doontaa baadin marka curios sida caadiga waa la yareynay so 16 aa qaadanaynaa labada dhinacna waxaa isticmaalaynaa 45 oo kale kadib intan waxaad qaadan kartaa adii 85 maadaama 45 aa dhahday okay just like that okay kadib qoraalka waa bedelaysaa maadaama background aa siinay waxaa ka dhigi doonaa white ama cadaan kadib intaas ku samayn kartaa if you need tusaale kale cursor pointer markii mouse loo aadiyo cursor pointer mouse markii loo aadiyo inuu noqdo sida tan oo kale just like that saas kale inuu noqdo sidoo kale ball radius dhinacyada inaad kasoo yani kasoo qaloojiso kale marka 8 pixels isticmaalaysaa maadaama buttonka hadda uu weyn yahay okay so paragraphkan isku jeeradhajiin almar waxaa siinayaa margin top like 20 pixels is okay okay control 0 adhaho marka shaashadaa soo dhaweeyey hadda marka tusaale qaybtan kale hadda saa ujeed ilaa intuu gaara marka ilaa intuu inuu gaaro ma la rabo inaan soo yareynaa rabnaa so which isticmaalaynaa waxaa dhehnaa qaybta hero touchstia waa kana qaybtaan isticmaalaynaa marka which isticmaalaynaa hero touches sama wax isticmaalaya which waxaa dhihi doonaa match with 7 pixels isticmaali doonaa 700 sorry 700 pixels haddaa fiirino ilaa intaa lagu simaaya so paragraphka asina waxaa yaraa soo yarey kartaa intaa insoo joobiyey qaybta paragraphka imaw meesha hadda 7 pixel laga dhidaayo waxaa dhihi kartaa 550 oo kale ama 600 aad ka dhigi kartaa 600 oo kale aad ka dhigi kartaa okay 600 okay intaas sameyna marka kan space sareyna siina weeyaan qaybta hero touchstia ma because paragraphkii iyo edgeonto dhammaan halkaas ku wada jiraan marka easily waa ka cadheynaa margin kori hoos space ka siisanaysaa marka waxaa leedahay tusaale kale 100 pixels 0 pixels sorry meesha waxaa rabaa 0 pixels inaa dhaho mujida space kori hoos la siiyey so qaybaha kale 0 pixels okay paragraphka halkan uu ku dhagan yahay let me change maybe kan inaa yareeyo soddon la dhaho just like that okay so intaa hadda waa sameyn marka waxaan ay maqan sawirka marka sawirka hadda soo geliyana wuxuu noqonaa sawirka in uu marka meesha sare maadaama hadda uu horeeyo content-iyo dhan uu horeeyo inuu qaybta sare noqdo noqonaya okay aniga usaalaha hal mar hadda sawirka aan horta soo muujiyo cabirkiisa aad weyn jacleena sawirka hero image
config camal aan dhehnaa qaybta sawirka ku hagaajinayno soo sawirka waxaa soo siiyey jalaas ah ama id wax sooma siina marka hadda siisanaya waxaa dhihi doonaa hero image hero so waxaa dhihi doonaa marka dot hero image maybe img na soo dhahay image okay then marka widthii 100% aan dhihi doonaa so shaashada soo wada qabsan doonaa oo wada arkeena let's see waa kana marka shaashada soo wada qabsan marka the only thing aan rabno waxaa hadda kuwaan inaad kan soo torsaarno marka waxaa jira position waxa la isiiska positionka marka waxa sameeynaa inta marka wuxuu noqonayaa in aan soo torsaarno soo position in waxa la isticmaalana positionka marka aad u fududahay qaybta content iyo positionkiisa waxa ka absolute that means meel walba aad dhigi karno meel walba aad rabno inaad dhigno inay dhigmaan laakiin waxa ku xireynaa difka anaga haysan right now difkaas oo ay ku dhex jiraan ayaga hadda waxa ku dhex jiraan dif loo yaqaan header yani tag aan ku dhex jiraan oo headerka loo yaqaan so taas ku xireysaa marka wax walba waxa ku xireysaa tusaale hadda taadaan tusaale kale hero content sama waxa dheena hero content waxa dhan ku jira qayba loojada wax oo dhan hero content oo ku jira waa kana difka tuso waa kana difkaana ku jira qaybtan naft top naft iyo kale hero labadaba waxa ku jiraan hero content difkaas loo yaqaan marka easily difkaas daadaho wax loo yaqaan position absolute waxa la weydiinaa marka afar meel la weydiinaa qaybta aad ka dhigi doono su'aal position absolute marka dhaho okay rabaxa I don't know let's see position absolute marka dhaho qaybta awr waa la weydiinaa marka waxa leeyahay su'aal kale waxaan rabaa top hadda wuxuu ku xiran yahay page ka dhan uu ku xirnaana hadda right now marka hadii doonaa top 0 hadda marka content iyo xumaana qaybta saro imaana top 0 so sababta marka hadda wuxuu ku xiran yahay page ku xiran yahay so hadda su'aal kale meeshaan daad ku bedelo bottom 0 bottom waa taqaanid dabcan qaybta hoose la sii qaybta hoose oo noqonaa marka content oo meesha noo yaalo qaybtiisa hoose oo noqonaya okay sorry qaybtiisa hoose content oo noqonaa hadda waxa ku xireynaa marka headerka ku xireynaa waxaa dheena header iso tag waxa iso dortaa header kali waxa dhigi doonaa position qaabkee u xirata marka relative adaysa position relative so position absolute wax kala maahan page ayuu floating ku sameynaa page ku socona yani wax ku xijaana iyo waxyaalahaas uma baahna so hadda marka waxa dheena inshallah si detail oo u sharxi doona hadda project inta u baahna inta waay inta heerina faanteena arjina adwaalid inshallah okay hadda top adayna qaybta sare hala keeno top 0 pictures qaybta sare kadib hadda waxaan rabnaa shaashada yani intaan dhan inuu wada qaato yani inuusan meel ku ekaan oo kale okay marka xalina widthisa 100% asiirana okay kadib inta meeshiisa imaan doona yani cabirka uu watay 100 yani cabirka uu watay containerka ahaa ayuu 100 kiisi wada qaadanaya cabirkaas containerka marka hadda waxa filayaa inay yara faanteen marka hadda wax kale maahan position markii wax la sameeyo taale hadda waxaad ku faasiinaa maybe inaa content badan ku daro su'aal mar عسمينا كنت تبدأنا كنت داريتونا لو كن أولار معمل قرال بدن سوا أما حكوا داريتونا شن كن أولار معمل كنت داريتونا إلى سعود maybe إنا أنت يركو فانتار أوكي هذا header relative ما ده وما سما إلى سعود مرت طب هذا زيرو سما قيبت سرور جودا طب أصلنا خانا بطن قيبت سوا أنت كل lefty right وايد تقارين أوكي هذا طب جودا سما حسمينا مرت بطن so sorry hadda waxaa qornay marka 5k soma 5k qornay let's see 5k qornay hadda top uu yaalaa so meesha hadda waxaa uu dhiday relative headerka relative uu dhiday so hadda waxaa uu dhidi doonaa qayb body oo kale relative uu dhidi doonaa marka waxaa dhidi doonaa inta taa soo dhidi karaa sorry qaybta body wax kale maahan tag weyn oo body yani page ka dhan weeyaan okay body waxaa dhidi doonaa marka position let's see position relative so hadda meeshaan top waxa uu bedeli doonaa marka top hadda top uun buu ahaana waa isla naqaanaa so body laakiin hadda uu badan yahay ilaa inta waa soma waxaan dhihi doonaa easily bottom iyo kan oo kale bottom intaa la keenaa marka let's see qaybta body qaybta worst la keenaa marka wuxuu ku xiran yahay hadda wuxuu ku xiran yahay body oo ku xiran yahay tagan oo body oo ku xiran yahay tag weyn oo body oo ku xiran yahay
so bodyna waxaa ku jira qoraallada waxaana ku jira hadhow buttonka qaybta hooseysa noqonaysaa top waxay noqonaysaa qaybta ugu sareysa marka waxa header position relative loo dhahay inta yar weeyaan insha Allah positionska si qotar isula arki doonaa hadduu alla ridmo okay so intaas aan sameyno marka waa dhameyn qaybtan insha Allah harjina inaad si fiican fahanteen waqti badan aan ku qaadanay waxaan rabaa inaan si fiican u sharxo insha Allah haddeertaan halkaas ku sii doonaa so hadda aan ku soo celiyay intii ahayd marka qaybtan waxaan ku qoraynaa top then marka intaas aan ugu talagalnay okay insha Allah waxaan dhameyn qaybaha kale aan qaadan doonaa hadda waxaan bilaabaynaa qaybta marka courseska assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh